نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله منها وإياكم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن شاء الله تعالى وحنقدر يراكم ومكتل ما ندوما أنه سيبدين هين قرآن كريم iyo fadligiisa runtii waxaanu garanaynaa qur-aankan kariimkii inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nimco uu inagu galladaystay uu ina siiyey waa nimco aada iyo aada u weyn markaas nimco aada iyo aada u weyn weeyaan waxaana dareemi kara uun qofka garanaya ee cilmiga leh ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii wax ka uga baxsan yihiin ayaa dareemi kara fadligan qur-aanka kariimka ah iyo darajada iyo makaanada uu leeyahay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka allah subxaanahu wa tacaala waa xadhigii allah subxaanahu wa tacaala ee adkaa waa xadhigiisi adkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay qabsada wactasimuu bixawli illaahi jamiican walaa tafaraquu qabsada buu le ilaahay subxaanahu wa tacaala xadhiga allah subxaanahu wa tacaala walaa tafaraquu ha kala tegina ummadda islaamka dadka muslimiintana waxaa laga doonayaa inay qabsadaan xadhigga allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka inay ku midoobaan ay qabsadaan oo isu kelimad noqdaan oonay kala tegin oy mid noqdaan waa dastuurkiisii qawiimka ahaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala dastuurku ummadda soo raaciyey weeye markuu allah subxaanahu wa tacaala inuu abuuray kitaabkan ayuu ina soo raaciyey kariimka kitaabkaasoo nolosheena oo dhan koobsanaya markaas qaab nololeedkeena oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisay ku jirta sharafteenna iyo cizadeenu waxay ku jirtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oynu kitaabkiisa raacno ayaynu aakhiriya adduunyadaba ku liibaanayna xaqiiqatan taasaynu aakhiriya adduunyadaba ku liibaanayna inagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa si dhab ah qabsana oo barana oo akhrina oo ku dhaqana ayaynu aakhiriya adduunyadaba ku liibaanayna walaalayaal waa kitaab aan horti iyo dabadiba aan wax baadil imanahayn iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wax arqaladeeya laa yaatiihi albaaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid buu leh allah subxaanahu wa tacaala waa kitaab aan horti iyo dabadii midna imanayn wax baadili iyo wax ishortaaga kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kitaabka allah subxaanahu wa tacaala waaraya waa kitaab xilli kasta lan jaan qaadaya ilaa qiyaami saaca ilaa maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka abuuray ilaa qiyaami saaca waa kitaab la jaan qaadaya waa kitaab la jaan qaadaya maxaa loo baahan yahay markaa walaalayaal inuu nimcadaa weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu galladaysta aynu dareenno nimcadaa weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu galladaysta inaynu dareenno waynu ka run sheegno ayaa loo baahan yahay walaalayaal taasaa loo baahan yahay waa nimco allah subxaanahu wa tacaala inagu galladaystay nimcadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu galladaystana dadku laba si-ood bay u qaabilaan laba sinfi amba laba nooc bay ugu kala qaybsamayaan nimcada qaabilitaankeeda
قف إلهي سبحانه وتعالى نمعدي ساقابله وقابله قلب فرق كسور دمية مركز وقابل إلهي سبحانه وتعالى نمعدي سا قف كان نمعد الله سبحانه وتعالى قابله يا القرآن كالله سبحانه وتعالى كل ما برميانا وقف علم ولا مركز قابلات الله يمنيه إلهي سبحانه وتعالى نمعد وكقدومنا أيوه وقف علم له قف علم له وهي قف قصاص مينا مركز ويوقف جاهلي تيسوق ما كلا جرنا أيوه حمان يستمان ما كلا جرنا أيوه marka qofku muslimkii markuu cilmi leeyahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa wax ka garanayo ayuu kitaabkani darajada uu leeyahay fadliga uu leeyahay dareemaya marka wuxuu sameeyaa qofkaas inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa laabta u furo inuu laabta u furo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa akhriskiisa badiyo uu ku dhaqankiisa la yimaado oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa tafsiirkiisa iyo macnihiisa wuxuu ku waramayo inuu barto si uu u khushuuco قف مركو كتاب الله سبحانه وتعالى وحنا كو ورميه وقرنيه خشوع با كدعيسا والله يمنيا تاس الله يمنيا ولا ليا قفكاس marka uu qaabilaya si fiican buu qaabilaya qofkaas wuxuu ogaanayaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ay ku jirto liibaanta aakhiro iyo liibaanta adduunyada inuu yahay hanuun uu yahay iyo raxmad uu yahay dadka muuminiintaas qofna waa qof ka jeedsanaya nimcadaas oo qofka jaahilkan cilmiga u lahayn garanayba uu ka jeedsanaya isagu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhikrigiisa iyo quraankiisa uu ka jeedsanaya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu sheegayaa quraankiisa kariimka inuu sheegayo isagoo inoo sifaynayo qofka ka jeedsaday kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma bi Allah subhanahu wa ta'ala qofkan ka jeedsaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabka iyo dhikriga qofka ka jeedsada ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الدنيا دن انتو جوغو وحو كو نولانيا نولو عيري الله سبحانه وتعالى نغو رحميا انتو الدنيا جوغو قفاس نولو عيري كو نولانيا نولو ضيق له او عيري او دباطه له او ورور له او البهار له ايو ku jiraya ilaa waa qof Ilaahay dhikrigiisa iyo xuskiisa iyo diinta Ilaahay isaga tagay oo ka jeestay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala noloshaas ku jiraya ciidiga dhibaatada leh waxa waliba inta uu soo dheer Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma maalinta yawm al-qiyamahana waxaan soo xashrin doonaa buu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala uu iman doonaa Ilaahay hortiisa isagoo indhala wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma Ilaahay buu la doodi doonaa wuxuu ka oran doonaa qaala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira Ilaahay maxaad ii keentaan oo indhala waxaan ii keentay anigoo indhala waxaan ahaa adduunka markaa joogay mid wax arkayana wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu jawaabi doonaa qaala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa oran doonaa waxa lagu oran doonaa markii adduunka aad joogtay aayaadkii ku yimaadeen oo lagu cadeeyo lagu sheegay oo dariiqa toosan iyo dariiqa qaloocan lagu kala sheegay dariiqa naarta ku geynaya dariiqa jannada ku geynaya waa lagu kala sheegay oo cilmi darra kuma heyn oo waa lagu sheegay cid xaq ku cadeysta ayaa kula joogtay fanasitaha waad iska tagtay markaas waad iska ilowday wixii lagu sheegayba wakadalika al-yawma tunsa adigana naarta هي لو يقول لوبي نارتا هي لو يقول هي اللي قاعد تجي يقول الله سبحانه وتعالى حبيب الله سبحانه وتعالى نارتا هي اللي قاعد تجي يقول الله سبحانه وتعالى هذيك انا مانتي حبيب الله سبحانه وتعالى ما يلوب وكذلك اليوم تنسى هذيك نارتا اللي قاعد تجي يا مان هذا جزاء من جنس العمل نارتا هي اللي قاعد تجي ساس الله قرن دورا marka bal ciqaab ka dhashay qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ka jeestay qofka aan kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala baran qof markuu kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala barta iyo macnihiisa uu barto iyo kitaabka Ilaahay wuxuu ka sheekeynayo wuxuu noqonayaa qof toosan oo cilmi u leeyahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa kitaabkan wuxuu leeyahay fadaa'il badan oo inaan soo koobi karin walaalayaal quraanka kariimku wuxuu leeyahay fadaa'il badan oo inaan soo koobi karin waxa kamid ah dheeraadku leeyahay quraanku fadaa'ishiisa waxa kamid ah inuu quraankan iman doono soo rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wa salaam fi hadith an-nawas binu sam'aan ku jirtay radiyallahu anhu rasuulku wuxuu yiri yuta yawm al-qiyamati bil qur'ani wa ahli maanta yawm al-qiyamah quraanka iyo ahlkiisa baa la keeni doona ehelkii ku dhaqmi jiray quraanka akhri jiray ku dhaqmi jiray baa la keeni doona buu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wa salaam yaday u horeyso suuratul baqara iyo al-imran oo u doodayaan qofkii akhri jiray ودوديان ولي إن الله سبحانه وتعالى وناخيجه ويجنب ودونيان ويجنب وجود جنب مركز وجود دوديان الله سبحانه وتعالى جنبي ودوديان
رسولك عليه الصلاة والسلام مركله اقرأوا القرآن قرآن كأخيه فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن كأخيه ورسولك عليه الصلاة والسلام عن أنت قيامه وحيمان يستقى الشفيع قاضي يضطك أخيه يا أصحاب تيسي سلا أوجد حتى قف رسولك صلى عليه الصلاة والسلام قرآن كإلهي حتى قف حريفا كنت يوصفي عن أخريها هي وحلا معنى قنا ساد ميل جوجي سمان قيامها ملائكة إلهي سبحانه وتعالى بدرج ميل جوجي سبب درجين شو لا جوجي سبب والله من نقنا سبب هذا حمد كذا لما كان نقنا سبب والله معنى قنا سمان قيامه حتى تحقق قرآن كيرا أدق هنا سورة رسولك نوشي عليه الصلاة والسلام لبقى أجريبا ديالنا سهطا أدق الله افتقال لبقى أجريبا ديالنا سه رسولك عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن قف القرآن كحريف كسلفي عنه أخرية مع السفرة الكرام البررة ملائكتها شرفت له يا كرامة له أيوب مين اللي تشوفي دونا والله معنى قندونا يقول رسولك عليه الصلاة والسلام هدو يقف قف قرآن بس كنت تاجي وقرآن يعني كوي راح كان عينا لبقى جربوا لي ورسولك عليه الصلاة والسلام مركا والله يعني إن شاء الله تعالى وإن نصدر إن قرآن إلهي سبحانه وتعالى قرآن إلهي من عداويه وإن نصدر إن ونوضر إنه كتاب كان الله سبحانه وتعالى كل يقول لي إيمان يا أدونك يا آخرته ويهي كتاب كان إلهي من الله سبحانه وتعالى ومضنا قروا بقارة قارنا هوس ولقى سببتيس سورة رسولك نوشك إلهي رسولك نوشك صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كتاب كان الله سبحانه وتعالى ومضنا قربوا بقارة والدرجة وكطلع إلهي سبحانه وتعالى وقربوا بقارة وعزية وشرفة وعزية إلهي سبحانه وتعالى kuwa ku dhaqma ee kitaabka Ilaahay akhriyo u ciiseeya way yadacu bihi akhri qaar kalena hoos buu dhigaayo uu duleeya Ilaahay subhanahu wa ta'ala markay quraanka ka jeestaan ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala duleeya Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu ka baryaynaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga dhigo kuwa quraanka kor ugu qaado uu ciiseeyo ee akhriya adduunyada liibana walaalayaal inuu inaga dhigo Allahumma ij'alna min alladhina yattabi'una al-Qur'an Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga dhigo kuwa quraanka Allah subhanahu wa ta'ala raaca يكون عمل فلا الله سبحانه وتعالى هنا قديقه انتاس إن شاء الله تعالى ولا عليكم سكوب دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته